بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo idin haya bahda TV qodobada aan idin haynana waxa ugu waaweyn Mareykanka oo ku amray madaxda maamul goboleedyada inaysan ka bixi karin magaalada Muqdisho ilaa xal rasmi ah laga gaaro doorashada Soomaaliya iyo xaalka oo aad u cakiran kadib markii dhowr jeer ay baaqdeen sharar madaxweynaha Soomaaliya uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee shirka la filayo in berito uu ka furmo magaalada Muqdisho qodobada sidoo kale aad daawan doontaan waxa kamid noqonaya shirka uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo berito ma qabsoomi doona mise wadooyinkii hore ayuu mari doonaa waan eegi doonaa xaalka shirka iyo madaxweynaha Puntland oo sheegay inuusan ka qayb gali doonin shirka berito maxay tahay sababtu saaxiibada caalamka oo iyaguna war ka soo saaray muranka hariya doorashada Soomaaliya iyaga oo ugu baaqay madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada in xal degdeg ah ay ka gaaraan arrimaha doorashada waan eegi doonaa qodobada sidoo kale aad maqli doontaan sidoo kalena aad daawan doontaan waxa kamid noqonaya dawladda Soomaaliya oo ciidamo fara badan geysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo dhinac ay ka degan yihiin Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Dani oo siyaasadda dawladda aad uga soo horjeeda iyo dawladda oo goor dhaweed beenisay wararka sheegaya in ciidamo la geeyo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde qodobada iyo kuwa kale oo daahson ayaad ku daawan doontaan wararka bahda TV ee u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkan oo dhameystiran si ay markasta ku soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee bahda TV rukumo oo subscribe saar siina faafi oo la wadaag dhammaan asxaabtaada aan ku bilaabo sida aan hordhaca warkeenaba aad ku maqasheen safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa goordhaweed war degdeg ah ka soo saartay shirka looga arinsanayo doorashada ee la filayo in uu ka qabsoomo aaga la ilaaliyo ee gegada diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay rabaan doorasho isla markaana ay tahay in madaxda maamul goboleedyada ay joogaan magaalada Muqdisho ilaa inta heshiis laga gaarayo oo ku saabsan hanaanka doorashada shacabka Soomaaliyeed waxay rabaan doorasho Siciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Ali Cabdullaahi Xuseen Guudlaab iyo Lafta Gareen waa inay joogaan magaalada Muqdisho ilaa heshiis doorasho la gaaro fashilku ma ahan ikhtiyaar ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda amarkan oo u muuqda mid looga digayo in madaxda ku sugan magaalada Muqdisho ay ka baxaan ka hor inta heshiis laga gaarin doorashada si gaar ahna madax goboleedyada taabacsan madaxweyne Farmaajo ayaa si kordhinaya cadaadiska ay beesha caalamka ku saarayso madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada in heshiis ay ka gaaraan doorashada qoraalka safaaradda oo ah amar culus oo ku socda madaxda dawlad goboleedyada ayaa waxa uu meesha ka saaray in kulanka Muqdisho uu fashilmay sida kuwii hore isla markaana ay dhinacyadu ka shaqeeyaan sidii ay heshiis u wada gaari lahaayeen qoraalka safaaradda ayaa imaanaya xilli ay maanta saaxiibada beesha caalamka qoraal ka soo saareen heshiiska doorashada iyagoona ugu baaqay madaxda Soomaalida in si dhaqso leh ay u shiraan isla markaana ay muujiyaan hogaamin iyaga oo ka ambaqaadaya soo jeedintii guddiga farsamada ee Beerdhabo 16 Febraayo 2021 si loo hirgeliyo hanaanka doorashada ee 17 Sebtembar 2020 loona gudbo doorashooyinka iyadoo aan jirin dib u dhac saaxiibada caalamku waxay soo dhaweynayaan imaatanka ka qaybgalayaasha shir madaxeedka dawladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka kaas oo lagu qaban doono aaga la ilaaliyo ee gegada diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaana lagu dhawaaqay in uu bilaaban doono 22 Maarso oo berito ku beegan 2021 ayaa lagu yiri qoraalka sida wadajirka ay u soo saareen beesha caalamka ayaa ku dadaalaysa in shirka Muqdisho ee ka furmaya gudaha xalane in uu san fashilmin sidii kuwii hore madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in aan war u heenin shirka berito la sheegay in uu ka furmayo teendhada ku taala garoonka ciidamada cirka ee Afisyooni ee magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlayo khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ku adkaystay in khilaafka doorashada ka taagan ka hor laga hadlo arinta ciidamada oo uu sheegay in ay si gaar ah u isticmaalayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay in xalay ilaa iyo saaka ciidamo dheeraad ah soo dhoobeen aaga uu ku yaala garoonka Aadan Cadde oo iyaguna ay degan yihiin madaxdaasi labada madaxweyne ee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku sugan Muqdisho
waxayna labadooda dhaliileen dowladda federaalka ee Soomaaliya dhowr jeer oo hore ayay ka baaqdeen shirar uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay oo lagu dhameyn lahaa khilaafka doorashada madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu yiri waxaan halkan u imid kadib markii aan martiqaad ka helay beesha caalamka gaar ahaan James Swan iyo Yamamoto oo aad baryahan ugu hoolanaa sidii dhinacyada la isugu kani lahaa kadib markii uu dhamaaday muddaxileedka hay'adaha dastuuriga ee dowladda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka hadlay arin saacadihii ugu dambeysay si weyn looga hadalhayay magaalada Muqdisho arintaas oo la xiriirta in garoonka magaalada Muqdisho ee aadan cadda la geeyay ciidamo aad fara badan Xijaar ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidamo hor leh oo lagu daabulay garoonka aadan cadde kadib markii taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed uu saldhigga garoonka hoos geeyay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir kaas oo markii hore ahaa mid ka madax bannaan waxaan xaqiijinayaa in hoggaanka ciidanka booliiska Soomaaliyeed aysan wax ciidamo cusub ama dheeraad ah ku daabulin garoonka aadan cadde ayuu yiri General Xijaar ciidamada booliiska Soomaaliyeed kuwa AMISOM iyo kuwa kale ee amniga kala shaqeeya aaga loo qoondeeyay in ay ku shaqeeyaan ayaa howlahooda shaqo maalinlaha ah qabanaya hadalkan ayaa imaanaya xilli shalay musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame walaac uu ka muujiyay in taliska booliiska uu saldhigga garoonka ku wareejiyay oo gobolka Banaadir isaga oo farta ku fiiqay in ciidamo hor leh lagu daabuli doono gaar ahaan haramcad oo ka tirsan booliiska dowladda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa shalay saldhigga garoonka diyaaradaha ee aadan cadde hoos geeyay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir kaas oo markii hore ahaa mid ka madax bannaan ma cadda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa talaabada uu qaaday taliyaha booliiska ee saldhigga garoonka lagu hoosgeeyay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir balse wararka qaar ayaa sheegaya in dana siyaasadeed laga leeyahay arintaasi si kastaba arintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemayay xerada Xalane oo ku taala garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo sidoo kale la filayo in berrito uu ka furmo shirka uu iclaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dambeyn degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa waxa maanta dowladda Soomaaliya ay geysay gaadiid dagaal iyo sidoo kale ciidamo aad u fara badan ciidamadan oo ka tirsan NISA ayaa dhawaan laga qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana la geeyay degmada Doolow ee gobolkaasi iyada oo maanta safar dhinaca dhulka ah ciidamadaas ay ku tageen degmada Balad Xaawo taliyaha howlgelinta Jubbaland ee ciidamada dowladda Bakaal Kooke oo ay wehliyaan taliyaha qaybta booliiska gobolka Gado Cabduqaadir Cumar Biixi iyo saraakiil kale ayaa degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado waxa ku soo dhaweeyay qaar kamid ah saraakiisha ciidamada degmada Balad Xaawo labadii maalmood ee la soo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ciidamo ka tirsan NISA ay ka dejisay degmada Doolow waxaana talaabadaasi cambaariyay maamulka Jubbaland oo sheegay in cawaaqib xumadii ka dhalata uu qaadanayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli waxaan ku guda jirnaa wararka gobolka Gado Nuur Madoobe oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu fuliyay xukun dil ah oo horey loogu xukumay ninkan oo ah askari ka tirsanaa ciidamada dowladda ee jooga magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa horey dil iyo kufsi u geystay gabar kamid ah shacabka Balad Xaawo aabaha dhalay gabadha uu kufsaday askariga kadibna uu dilay ayaa gacantiisa ku toogtay ninkii dilka gabadhiisa u geystay qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa ka qayb galay goobta ay ka dhicisay toogashada guud ahaan daawadayaal wanaaganta wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aad kala socoteen Bahda TV intaan warkan kan xiga ku kulmi doono saaxiibayaal waxaan idinkaga tagnaa sidaa iyo nabadgelyo